ciidamadii BNPF ee ka soo goostay garabka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ee ku sugnaa magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka imaamusha maamulka Puntland iyo gawaari dagaal ay wataan ayaa waxay u guureen dhinaca maamulka Galmudug sidoo kale madaxweynaha markaasi wasiirka difaaca Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ku wajahan magaalada Gaalkacyo ee xarunta maamulka Galmudug halkaas oo la sheegay inuu dhawaan uu tababar ugu soo xiri doono ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya soo dhawaada xogo iyo macluumaad ku saabsan arrintaasi ayaan muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa balse kamid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u hesho xogay ugu dambeeyay ee markaas naga soo gaaro gudaha Soomaaliya aad baad u mahadsantiin haddii aynu ku bilaabno ciidamadii BNPF ee ka soo goostay garabka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ee markaasi dhawaan ay isku dhaceen ayaa waxa la sheegay inay ka guureen dhinaca magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhinaca imaamusho maamulka Puntland Soomaaliya waxayna gaareen iyagoo gawaari dagaal wata dhinaca maamulka Galmudug ee markaasi magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya ciidamadan oo markaasi hore u goostay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni kadib markii uu khilaaf soo dhaxgalay labada dhinac balse dhinaca kale waxa la sheegay in ciidamo taabacsan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ay markaasi isdhoobeen ilaa iyo u dhaxaysa magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal aana xarunta maamulka Puntland Soomaaliya tani wixii ka dambeeyay dagaalkii ka dhacay waa markaasi deegaanka lagu magacaabo Laag oo u dhow magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ciidamadan BNPF loo yaqaano ee markaasi sida weyn uga howlgalaya deegaanada maamulka Puntland balse markii dambe isku dhaceen madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu sheegay in gebi ahaanba ayna ahayn ciidamo u tababaran dowladda Puntland waxa uu meesha ka saaray in ciidamadan ay yihiin kuwa markaasi ka tirsan maamulka Puntland Soomaaliya wixii inta ka dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qalbaysay ciidamada BNPF waxayna markaasi ay mushaaradkooda ay iyadu bixinaysay iyadoo ay sheegtay in markaasi ay ka howlgali doonaan deegaanada maamulka Puntland Soomaaliya balse Saciid Cabdullaahi Deni oo si weyn ciidamadaas uga soo horjeeda ayaa ciidamo fara badan waxa uu geeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wadada xiriirisa iyo sidoo kale magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ahna caasimadda maamulka Puntland Soomaaliya ciidamadan oo markaasi ka goostay garabka maamulka Puntland ayaa maanta waxay gaareen gelinkii dambe ee maanta dhinaca maamulka Galmudug gaar ahaan waa markaasi qaybta imaamusho dowlad goboleedka Galmudug maamulka Puntland wuxuu eedeeyay kala duwan oo dusha uga tuuray maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo xuduud la wadaagay sidoo kale maamulka Galmudug waxaana madaxweynaha hore ee maamulka Galmudug oo tilmaamay in markaasi eedeynta uu jeediyay Saciid Cabdullaahi Deni ay tahay mid aan waxba ka jirin waxa uu sheegay in markaasi ay tahay mid uu markaasi uu kaga raadinayo ficilo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu eedeeyay kala duwan u jeediyay dowladda maamulka waqooyi bari Soomaaliya sidoo kale maamulka Galmudug waxa uu ku eedeeyay inay markaasi saldhig u yihiin dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo fara badan uu sheegay in markaasi ku daabulayso qayb ka mid ah maamulka Puntland iyo sidoo kale aan iraado waa maamulka Galmudug iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari Soomaaliya khilaafkan ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug oo dhawaan soo shaabaxay aan iraado waa markaasi dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa u muuqda mid haatan markaasi soo cusboonaanaya sidoo kale ciidamada dadka deegaanka oo wata gawaarida dagaalka oo aad arkaysaan ayaa markaasi iyaguna waxay ku beereen garabka maamulka Galmudug ciidamada u goostay ee dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada xoogga dalka ee markaasi iyagu ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa inta badan waxay ku sugan yihiin deegaanada ay maamusho maamulka Galmudug Soomaaliya hase ahaatee maamulka Puntland ayaa isagu ciidamo fara badan waxa uu geeyay deegaano ka tirsan xuduudda la wadaaga maamulka Galmudug waa markaasi maamulka Galmudug xaaladdu lama oga halka ay ku dambeey doonto dhinaca kale wasiirka difaaca Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhawaan la sheegay inuu gaari doono magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaasi waxa la sheegay inuu tagi doono waa markaasi tababar loo soo xirayo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo markaasi tababar ku qaadanayay qayb ka tirsan maamulka Galmudug oo magaalada Gaalkacyo loogu soo xiri doono Axmed Macalin Fiqi ayaa safarkiisa hordhac waxa uu ahaa ciidamo markaasi dhawaanahan laga dejinayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug taasi oo dowladda maamulka Puntland ay eedeymo kala duwan uga jeesay maamulka Galmudug waa markaasi oo ay sheegtay inay gogol dhig u tahay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daabulayso qayb ka tirsan maamulka Galmudug balse lama oga halka ay markaasi xiisadu ku dambeey doonto khilaafkan ayaa mid soo noqday oo markaasi soo cusboonaaday balse waxay u muuqataa in xilli
xilligan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ay sii kala tagayaan. Dowladda federaalka Soomaaliya iyadu waxay doonaysaa in markaasi ay meesha ka turto Saciid Cabdullaahi Deni oo muddo soo hogaaminayay maamulka Puntland Soomaaliya, waxayna ku eedeysay in markaasi uu ka dambeeyay qalalaase kala duwan oo ka dhacay maamulka Puntland Soomaaliya. taliyaha qaybta kontaryafaraad ee ciidamada xoogga dalka General Jimcaale Jaamac Takar ayaa isagu markaasi ku sugan deegaanada maamulka Puntland Soomaaliya oo ah taliyaha qaybta kontaryafaraad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, halkaasina kulamo kala duwan ayuu ka wadaa. dhinaca kale musharaxa dowlad goboleedka Galmudug ee dowladda federaalka Soomaaliya Liibaan Axmed Xasan Shuluq ninka loo yaqaano oo isagu xilligan olole ka wada deegaano ka tirsan maamulka Galmudug ayaa dhawaan hadal uu jeediyay. Waxa uu sheegay in markaasi eedeymahan kala duwan ay jeedinayso dowladda Puntland ama dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay yihiin mid markaasi sharaf dhac ku ah dowlad goboleedka Galmudug. Waxa uu sheegay in markaasi miiska wada hadalka la isugu imaan doono oo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug oo markaasi oona faraha la geli dooneen xiisada ka dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug. dowladda federaalka Soomaaliya iyadu doonaysa in doorasho qof iyo cod ay ka qabato deegaanada maamulka Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle Koonfur Galbeed hore u dhacday waqooyi barna oo ku xigta, balse dowladdu waxay maara u leedahay maamulka Puntland Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka waa markaasi Jubbaland oo warkacayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo markaasi tan iyo muddooyin waa markaasi aan laga qaban doorashooyinka ee dowladdu ay qabanayso, iyadoo Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo horey uga goostay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale silnimada Saciid Cabdullaahi Deni ayaa markaasi horey kaga goostay dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale haddii aynu dib ugu laabano magaalada caasimadda Muqdisho, wararka imaanaya haddii aynu eegno dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markale waxay qorsheynaysaa in weerar la mid ah waa weeraradii dhacay horaantii bishii 6aad lagu qaado madaxweynaha waa markaasi madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynaha oo markaasi ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre oo iyagu ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho. 31 bishan magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaa ka dhacay shir u dhaxeeyo wasiirada amniga iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada Afrika ee AMISOM ee markaasi ka jooga gudaha Soomaaliya. maanta ay ahayd markii golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay war ay soo saareen ay ku sheegeen in markaasi ciidamada AMISOM ee midowga Afrika ama markaasi ciidamada AMISOM ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya ee dalalka Afrika ee ka jooga ciidamada gudaha Soomaaliya ee ka joogaan in markaasi aan laga saari karin sabab ay ku macneeyeen in markaasi doorashooyinka dalkan wali la isku raacin iyo amniga oo ay sheegeen ciidamada xoogga dalka ayna si qalabaysan ayna ula wareegi karin amaanka dalka. balse golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxay dalbadeen in ciidamadan ay ku sii sugnaadaan. dowladda federaalka Soomaaliya iyadu doonaysa in doorasho qof iyo cod si degdeg ah loo qabto. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo caawa kulan kula leh magaalada caasimadda Muqdisho waxgaradka beesha Awaale iyo sidoo kale hogaanka sare ee maamulka Hirshabelle ayaa isagu wuxuu doonayaa in markaasi tan marka uu ka soo dhamaado oo markaasi uu gaaro deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi uu ka abaabuli doono dagaalka dhana kooxda Al-Shabaab oo markaasi uu lala galayo, balse lama oga xiisada hadda ay ku dambeyn doonto. haddaba waxyaabaha ka soo kordha xiisada ka taagan maamulka Puntland iyo ciidamada markaasi hordhac u ah waa wafdigu hogaaminaya Axmed Macalin Faqo oo dhawaan sheegay inuu gaari doono magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale doorashooyinka dalka cakiran. halkan ayaa si joogto ah uga daawan doontaan muuqaalka meel fog gaariya waa markaasi meel fog gaarsiya lana wadaaga saaxiibadiina. aad baad u mahadsantihiin.